xasan axmed ciid waxa uu ku dhashay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka 10 Oktoobar 1996. xasan axmed ciid waa da'da 11aad ee qoyska aaba axmed ciid iyo hooyo madiino sheekh cali. xasan nuur ayaa loogu wanqalay inkastoo uu caan ku yahay daaneysta ciid inta ugu badan noloshiisa iyo tacliintiisa asaasiga ah waxa uu ku soo qaatay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka hooyo ee Soomaaliya. sanadkii 2006 ayuu bilaabay inuu noqdo xirun waxa uuna u xiraystay barashada culuumta diiniga ah. culimo badan oo caan ka ah diinta Soomaaliya ayuu ka soo diin qaaday. sanadihii 2008 ilaa 2012 ayuu ku soo qaatay waxbarashadiisii hoose iyo dhexe dugsiyada kala ah Almarwaasi iyo SYL. sanadkii 2012 wuxuu ku biiray dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Jaabir bin Hayaan halkaas uu ku soo dhigtay dugsiga sare waxa uuna soo gabagabeeyay sanad dugsiyeedkii 2015-2016. sanadihii 2014 ilaa 2016 waxa uu ahaa bareed darsa culuumta kombiyuutarka ah halkaas oo ay uga aflaxeen dafcooyin kala duwan waxa uuna kaalin weyn ku lahaa kobcinta aqooneed iyo soo saaridda ardayda Soomaaliyeed. waxa uu sidoo kale ka soo howlgalay shirkado ganacsi sida Discounti Computer Training Company iyo Kamal Computer Center uuna ka ahaa cilad bixiye xagga kombiyuutarka ah. jaamacadda Lively Professional University ayuu ku biiray 2017 waana arday barta culuumta electrical engineering sanadkii saddexaad. isla sanadkaas ayuu ka mid noqday rag isu soo taagay sameynta maamul midaysan oo ay yeeshaan ardayda Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Punjab. sidoo kale waxa uu xubin firfircoon ka ahaa guddiga doorashooyinka ee soo dhisay maamulka hadda muddaxileedkiisu dhammaaday. intaa kadib waxa uu muddo sanad ah ka mid noqday golaha marjaca ama matalayaasha ardayda Soomaaliyeed. hadda waa musharax u taagan qabashada xilka hoggaanka ardayda Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Punjab. waa xogogaal ka warhaya xaaladda gobolka ka jirta isla markaana horumarin kara oo dhayi kara hadba boogtii dhayid u baahan.